kulanti wacan daawadayaasha ku xiran janalkan Shabalala Tube ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. Muuqaalkan waxaan idinku la wadaagayaa qiso aad u qiimo badan isla markaana ay ku sagan tahay waano iyo cibro qaadasho. Qisadan ayaa waxa ay dhaxmartay Fircoon iyo haweeney u shaqayn jirtay. Haweeneydan ayaa heen jirtay amba u adeegi jirtay gabadha uu dhalay Fircoon. Maalin maalmaha ka mid ah haweeneydan iyada oo gabadha Fircoon tinta u hagaajinaysa ayaa waxa ka dhacday shalladii. Markaasay waxay tiri bismillaah. Gabadhii ayaa waxa ay ku tiri rabbiga aad sheegayso ma aabahay ayaad ula jeedaa? Markaasay waxay ku tiri maya waa rabbigii nabada abuuray. Gabadhii waxay u tagtay aabaheed waxayna u sheegtay waxay haweeneydan tiri. Fircoon ayaa u yeeray haweeneydii wuxuuna ku yiri rabbigaaga waa kuma? Waxay tiri waa allaha adiga iyo aniga nabada abuuray. Fircoon aad ayuu u carooday wuxuuna ciidankiisa ku amray inay caruurteeda loo keeno. Wuxuu diyaariyay saliid aad u karkaraysa. Markaasuu wuxuu u yeeray haweeneydii wuxuuna ku yiri rabbigaaga waa kuma? Haweeneydii waxa ay tiri rabbigayga iyo rabbigaaga waa Allah. Wuxuu amray inuu wiilkii ugu weynaa wiilasheeda saliidda lagu tuuro. Waxaa lagu tuuray saliiddii. Kadib waxa uu soo qabtay wiilkii ku xigay. Markaasuu ku yiri haweeneydii rabbigaaga waa kuma? Waxay tiri waa midka nabada abuuray. Saliiddii ayuu ku tuuray wiilkii labaad. Wiilkii ugu yaraa oo dhabta u saarnaa ayaa la soo qabtay. Wuxuuna ku yiri Fircoon waa kuma rabbigaaga? Haweeneydii way aamustay. Ilin ayaana ka soo daadatay. Kadib Alle subxaanahu wa tacaala ayaa wiilkii yaraa ka hadalsiiyey. Wuxuuna hooyadii ku yiri hooyo ha baqin, xaq ayaad ku taagan tahay ee ku dheh Alle ayaa nabada abuuray. Hooyadii iyada oo muujinaysa geesinimo ayay ku tiri Fircoon rabbigaaga iyo rabbigayga waa allaha nabada abuuray. Kadib wiilkii yaraa ayuu saliiddii ku tuuray. Hooyadiina waa uu ka dabageliyey. Markii uu jirkooda go'go'ay ayuu lafahoodii ka soo saaray saliidda wuxuuna ku tuuray webi meesha ku yaalo. Rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam markii la dheelmiyey ayaa waxa uu arkay waadi aad u udgoon badan. Markaasuu waxa uu weydiiyey Jibriil calayhi salaatu wasalaam waxa uu yahay udgoonkan. Jibriil ayaa ku yiri rasuulka sallallahu calayhi wasallam waa haweeneydii tinta u saleyn jirtay gabadhii Fircoon iyo caruurteeda. Markii Alle ay rumaysay isagana ay tala saaratay ayaa waxa uu ku karaameeyey in udgoonkeeda laga soo carfiyo meel aan dhoweyn. Qisadan waxaynu ka faa'iideynaa inay habboon tahay inaad xaqa ku taagnaato, maxaa yeelay mar waliba uu baadilka sara maro xaqa ayaa baaqi noqonayo. Waad ku mahadsan tahay daawashada aad daawato muuqaalkan daawade. Haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqato janalkan Shabalala Tube, waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad janalka subscribe aad saarato furtana gambaleelka si ay kuu soo gaaraan muuqaalada dambe ee aan halkan soo gelin doono insha Allah. Intaan muuqaalkan muuqaal lamida aan ku kulmi doono nabadino.